السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا أديات سلام يا dadweynaha ka soo qayb galay xafladan oo ahayd ku soo hagaagtay xilli rabadaana waliba dib u dhac badan oo inagu dhacay dad badan oo xilli hore yimid oo dadka qaar 8diiba warqada ku qoraydo 8diiba yimaadeen adoon ma hadaqaya caaw waxad moodaa meesha dadkii isugu yimiday ragii wala waayaba aan raagnay waqti badan naga dhacay waxaan soo koobayaa hadal badan ma oranayo waxaan ku soo koobayaa waxa ugu weyn caawa meesha aan isugu nimaynay caawa laba codaynayo waxa ugu weyn waa abaabulkii bulshada waxa caawa la isugu yeedhnay waxa weeyaan abaabul la galo inta caawa halka joogto waxa ku jeer ka badan inta inaga maqan in fariintaasi gaadho inta inaga maqan oo dadkii la gaarsiiyo abaabulka la galo sida maxamed sheegay 25 maalmood noqdaan 24 maalmood abaabulka noqdaan maalinta 25 waa maalinta codaynta weey waxa jira marka la yiraahdo xaaladda dalku ku jiro iyo sidaan nahay isbalaha degmooyinka dalka boorama waxay kamid ahayd magaalooyinkii ugu horeeyay Soomaaliland laga sameeyo maanta waxa laga yaabaa in dhaliilo badan ay leedahay waxaan isleenahay hadaa doorashada ku guuleysataan wax badan waxaad ka qaban kartaan degmada tartan baa lagu jiraa waa laga yaabaa magaalo ka weyn oo Hargeysa ka weyn tahay laakiin waxaan ku dadaalnaa inaanay Hargeysa ka qurux badnaan inaanay Hargeysa ka garoona badnaan inaanay ka dhalinyaro qurux badnaan inaanay ka haween qurux badnaan degmooyinka marka la sheegayo resource marka la tirinayo degmada Boorama waxay ka mid tahay degmooyinka ugu resource badan degmada Boorama waxay leedahay macdanta dalka ugu badan waxay leedahay beeraha ugu badan waxay leedahay xoolo dhaqatada ugu badan markaad eegto ganacsigana in yaro facility dawladnimo weydii mooyaane waxaan filaynaa insha Allah inay noqoto magaalada ugu warshada badan dalka waqtiga xilli dambe awgii waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa weey saddex wax inaad ogaataan koow ballanteena koobaad waa abaabul ballanteena koobaad waa abaabul ballanteen labaadna waa codayn ta saddexaad aan idin faraya waxa weey waxa jira imiga intan dambe waxa aad ololaha kala ka socda iyaguna meelo kale page baa jira social media la sameeyay oo Facebook ku yaalo la yiraahdo taageerayaasha musharaxiinta Yaasiin Dehaye iyo Maxamed Habiib marka page-kaasi wuxuu noqon doonaa meesha ugu weyn ay ka socdaan barnaamijyadu iyo xiriirkeenuba waxa la idin ka rabaa